waxaa saaka magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan socon doona muddo 2 cisho oo dib loogu eegayo manhajka dugsiyada hoose dhexe ee Somaliland kulankaasi oo ay soo qaban qaabisay hay'adda African Education iyadoo kala shaqeysa dhinaca waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland kulankaasi ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay hay'adda wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare agaasimaha manhajta iyo waliba agaasimayaasha waaxyaha gobolka iyo waliba degmada ee kala duwan waxaana halkaasi lagaga doodayaa sidii kor loogu qaadi lahaa isla markaasina looga doodi lahaa manhajka waxbarashada dugsiyada hoose dhexe ee Somaliland iyo sidoo kale sidii loo midayn lahaa guud ahaanba syllabuska laga dhigo Somaliland waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay agaasimaha manhajta wasaaradda waxbarashada waxaanu faahfaahin ka bixiyay kulankani cidii soo qaban qaabisay iyo waliba nuxurka lagaga doodayo waxa kale oo isaguna halkaasi ka hadlay Xasan Embassy oo ka socday hay'adda African Education waxaana soo gunaanaday wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Cabdillaahi Ibrahim Habane isagoo faahfaahiyay ujeedada kulankani sidoo kale wasiirka wasaaraddu waxa uu fariin u diray dadka iyagu ka shaqeeya dhinaca waxbarashada guud ahaanba wasiirka agaasimaha manhajta iyo waliba Xasan Embassy oo ka socday hay'adda African Education wadalladoodii waxa kamid ahaa ragii soo diyaariyay manhajkan dugsiyada hoose dhexe aqoonyahanada oo ka kala shaqeeya jaamacadaha iyo dugsiyada sare waxa kaloo jooga halkan guddiga waalidiinta maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe jooga waxa jooga macallimiin ka tirsan dugsiyada hoose dhexe kujinaa markaad aragto halkan maalmihii ugu dambeeyey ee lagu ansixin lahaa syllabuska iskuullada sekondariyada sida la sheegay waxaad soo geliseen dadaal badan baad soo geliseen muddo badan baad ka soo shaqaynayseen halkan aad soo gaadhsiiseen waxaad markaa aad ugu faraxsanahay hawsha ka kala gelin markaad adigu wax samaysato wuu ka baraka badaya waxa lagu soo sameeyey ogtahay dhammaanteedba inaynu saaka halkan isku nimaadno oo aynu isu soo hordhigno wixii carruurteena dugsiyada hoose dhexe u noqon lahaa mawduucyadii loo raaci lahaa waxbarashadooda ku salaysnaan lahay oo ujeeddadu tahay in la abuuro ilmo kolkuu intaa barto noloshiisa nooca u maarin karaa ama mustaqbalka noloshiisu ay sidaa ku dabayn doonto isku soo wada duuboo dib u eegista guud ee lagu samaynayo manhajka dugsiyada hoose dhexe iyo waliba sare ayaa waxay soo socotay ilaa iyo 2 sare ugu dambeeyay iyadoo guud ahaanba la qabtay kulamo kala duwan oo lagu eegayo arrimahaasi waa Maxamed Cali Xaashi TV Space Channel magaalada Hargeysa.